xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa gudbiyay mooshin ka dhana shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso sida faafahinta warkani uu Garowe noogu diyaariyay Maxamed Saalax. in ka badan 20 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa mooshin ka dhana shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso u gudbiyay gudoonka golaha wakiilada Puntland. xildhibaanada ayaa sheegay in shirkadda DP World ay sifa sharci darro ah ku joogtay marsada magaalada Boosaaso aysan qaban shaqadii ballaarinta dekedda oo lagu heshiiyay in lagu qabto muddo kooban. golihii wakiilada Puntland maanta waxaan gudbinay mooshin kaasoo aan ka geynay shirkaddii dekedda Boosaaso la wareegtay laba sano ka hor maadaama heshiiskii lagu heshiiyey ay ahayd markii la wareejiyo in dekedda shaqo laga qabto wax shaqo oo ay qabatana ma jirto dakhli iyo cashuurna waa ka gurataa. baarlamaankeedu waa u codeeyay inay dawladdaas DP World Soomaaliya inaysan ka shaqayn karin haddeerna ilaa iyo baarlamaanka Soomaaliya intuu shaqeeyay sharci darro ku shaqeynaysa. waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland inay ku shaqeynaysa DP World dekedda Boosaaso sharci darro maxaa yeelay dawladda federaalka ee diiday ee ansixisay waa baarlamaankii anagu aanu dooranay weeye kuwa anagu aanu dooranay oo Puntland ka dooranay oo Soomaaliya laga soo doortay diiday oo yiri DP World Soomaaliya kama shaqayn karto see go'aankeeda lagu diidi karaa cidii diiday iyada waxa weeye dambiga iska leh annaguna waanu diidnay mooshinna waa ka geynay waana laga codeynaya waana laga hadlayaa gudoonkuna waa laga qabtay iyo bilo dheeraadiba waa gudbeen waxay ku joogtaa shirkadaas sifa sharci darro ah oo wax shaqaayo hadda ay wali ka qabatay ma jirto wasiirkii waa joogaa dekedaha ee Puntland waa u yeeri doonaa heshiisyadii iyo wada hadalkii aanu gallayna way yaaleen oo arkiifyada ku jiraan shirkadda DP World waxay ku shaqaynaysaa sharci darro dalkana waxaan leenahay iskaga baxdo. xildhibaan maxamed axmed jacayl oo kamid ah mudanayaasha mooshinka ka gudbiyay shirkadda DP World ayaa warbaahinta u akhriyay mooshinka ay gudbiyeen. annagoo xildhibaanada ku saxan mooshinkan kaasoo ah inuu bari heshiiskii ballaarinta dekedda Booso kadib markii shirkaddii Global Port Service ay ka soo bixi wada heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha ee Boosaaso oo dhigaya in shirkadda dekedda dhismaha iyo ballaarinta bilowda marka lagu wareejiyo muddo 2 sano gudahooda ku dhamaystirto isla markaana ku maalgelisa lacag dhan 336 milyan oo dollar iyadoo ka dhigaysa laba wajiga koowaad ah 136 milyan iyo wajiga labaad ah 200 milyan ilaa haddana ma jirto wax qalab iyo dhismo oo ay keentay iyo wax shaqo ballaarin oo bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah farqooyinkiisa kala duwan waxaan aqrinaynaa in jadwaladii loogu talagalay ee 2 ilaa 6 ay dhammaantood bureen dekedina ay cid buuxisay sida dadka mooshintii waa aqbal gudoonkuna waa qabtay waana ka warsugaynaa. Puntland ayaa shirkadda DP World ku wareejisay dekedda magaalada Boosaaso June sanadkii hore iyadoo wareejintan ay ansixiyeen xildhibaanada Puntland. dhismaha dekedda Boosaaso ayaa DP World ku bixinaysaa 336 milyan sida lagu sheegay heshiiska ay Puntland la gashay. dekedaha Boosaaso iyo Berbera ayaa Puntland iyo Somaliland ku wareejiyeen shirkadda DP World waxaana ka hor yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Saalax SBC Garowe.